ما عقاشة الله هذا الله مركب كرفوه يسون الله هذا الله مدحوينه كجودا تلدينه يكجودا ما أنت تلد عيد كجودا غير ولا صوت هذا قف صوت تلينية قف صوت تلينية ورت الدولة والدولة وطني هي أضوب هي كل مية إسكتري ما الدولة حجز ما أنك ساقبتي لو كن يتوانكي أي نقطة الدولة شيعانا أنا قلت شيعان تقول سمية ماشي ليها كرادك ما أنت واحد نقطة شيعان كلو لو سمية ألف وين وقال حجز هو سكيها بدون السن يو حبرت على الدين تحبرت على وحلينا شوشية شيعانها شوشية شيعانها ولا ينوها نشبية وحنا نقول واحد بيسكعين كرين وكلا قيبسن مركز حوق ليه هاي لو قياس لو قدريه أي نبض دونا شوشية نبض هذه الإنسان تاريخ أمر بسني يودون يقولوا سلاس عنه أي ساعة ضاوني أي عصبة على دي كذا اللي ولا نحسوا وبقال اللي قبل على رجع واوين كنت الشوتك يدقن كيني كي دين تاني يكيش يكي دقن كي يكي دين الإسلام كوك تجين أضياش أنا ما أنت وما مضى قاطي يروح ونحي وقال يا سرادين بدنا متيجي يعني عاركيدو حتى أنا أسترين ودي بسه ودي بميكروفونك وأنا غير كعي وعليه كحشور إلهي كحشور سبحانه وتعالى إرجاب ما قبسن كرت إرجابه ما قبسن تجيب قرلوجد ما قبسن عينما لا سعانة وتسيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مركو إلهي وما الله سبحانه وتعالى إلهي جاه نمعوين كبرا إن السيئة ما محضر ونو شكر نغيناه وحده انت واحد واريال ما انت waxaan jeclahay inaan dhowr arrimood ka hadlo maadaama ay nagu soo beegan tahay maalin qiimo weyn nagu fadhida marka horeysa waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland maxamed cali iyo raggii ka soo shaqeeyay nabadii Elf weyn ay nagu rafatay ciidamadii madanigaana qarameeyay laba talaabo aad iyo aad lagu baahnaa ayaa ahaay waxaa kaloon hambaleynayaa ciidankeena qalabka sida geesiyaasha iyo ciidamada nabadgelyadaba waxaan inagu soo muuqata maalinta Brit 18 May oo ahayd in fact inaan u bixino maalintii guusha aynu ka guuleysanay cadowgii nacabkii faqash wad ogtahay maanta waxaa loo dabaaldegay shalayto 8 guuradii naasiga laga soo guuleystay inaga xorriyadeena maalintan qaadnay waxay 26 June 1960 bay marka inaynu maalinteeni hareeno ma ahayn in maalintan ka dhignaa weeye maalintii guusha Ilaahayna siiyay victory day لحية لواس كان تونان حوجنا ونقطة معلنتي independence استير تون كان معينا أنا قودينا إذا صوب عندك الساعة دون كل معلنتو في دي في إيه أيوة صور مقدقان وحين تاي راعة ولا ليال وحلاها مانتا أرتان استير تون كان مي قرباه يدي بدأ يجودها وحن شاء الله إنسي مغلهم ملايسن وميل قرا لو تقبطه تبالغ دقينا إن لو قبطه سيبوا حن كل هذه دتك دبته تفضيلون كل شيء ويدان إلى المال ما نتعقي ما عليه إلى هاي جوشي نجسي نعبكي إن حسوقي الملك هو السمين ويدان تقرر موضوع السكرتان ما أنت الشعب يقولوا ألو سيهاي أروتين إلى تشيدلي أي عن كيستان سوما لا دو كده بالدقيقة إلى تشيدلي تذكروا ألو سيهاي ما أنت سيان هرو على صنبه وألو سيين لأن قلوب تيني باسكو سوتشي سي الشعب جينا marka waxaan jecelahay in nabadgelyada 18 May qof kasta warta xil iska saaro qof kasta yaanu ku haleen ciidamada nabadgelyada qof kasta oo maanta laga bilaabo waxa tahay ciidankii nabadgelyada ka mid tahay waa inaynu foojignaana waa inaynu
ilaalinaa nabadgelyadeenna ay maanta Soomaalida waxba qabsan kara weyday ay maanta doonaysaa inay qasto ilaahay baan inaga joojin doona alxamdulillah ilaahay ayaan ka hoos galnay subxaanahu wa ta'ala inta waxay raaca maanta dalkeena dee Muuse wuxuu ka tagay ICU ka tagay intensive care unit ka tagay qof ku jira ICU na in la ilaaliyo oo dawada loogu dadaalo moojaane in la qaso oo wax la yeelo loo baahna maanta dalkeena iyo ummadeena uma baahna wax qaso uma baahna maanta dalkeena maanta wax mideeya oo shacbiga 4 sanadood naalay nabad ku naalooniyay rajada ku naalooniyay in biyasiinin oo cashuurta bixiya oo cashuurta waxa ka soo aanu jirin aan dawo lagu siinin aan caafimaad lagu siinin aan waxbarasho lagu siinin aan lagu siinin magaalada biyo lagu siinin online lagu siinin intii dawlad bixin jirtay ma bixino laakiin iyuu intii shacbi bixin jiray in ka badan bixiyaan cashuur aan qaadi karin way bixiyaan nabadda laakiin haystaan oo wax loo dhigaa aan jirin nabadda ka ciyaarina waxaan leeyahay ragga waaweyn ee ka tagay xishoodkii iyo dhaqankeeni kii diinteeni iyo kii dhaqankeeni iyo kii diinta islaamka uu ka tagay odayaasheena maanta culimada qaatay ee yiri waxaan nahay uqaal iyo salaadiin midna ma tiidin inta meel soo fariistaan inan caarkeedu hatta aanu astureen u dhiibiya mikrofoonka oo reer kala cay waxaan leeyahay ka xishooda ilaahay ka xishooda subxaanahu wa ta'ala mar haddaan sharciga iska dhignaadeen Soomaaliland nahay aynahay waxaan qabiil iyo tamiya ba ilaahay ka baqa subxaanahu wa ta'ala ilaahay oo dadka masaakiinta ee maalin kasta ka naxinaysa ka joojiyay maanta waddankeena wax aan cay ahayn ka soo bixi mayso asxaabtu way qarsoontay dawladdu way qarsoontay codkoodii waxa qori la maqlaa waa ceebteena iyo nimanka sheegtay uqaashiya salaadiinta ninka jilib ka soo jeeda sultaan sheegtay sultaanku waa inuu dowlad jilib u xukumaayo hoos yimaadeen bal uu xukumaya salaadiintii 90kii wixii ka dambeeyay waxaan u aragnay inay fake wax lagu shaqaysto oo Soomaaliland dhibaato u keenay oo qariyay institution building aan isnay nation building umad aan isna qaran isnay waxay naga qasiyaan nimankaas dawladda waxaan leenahay wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay sharci ka soo saar nimankaas salaadiinta sheeganaya غير مسؤولين dadka kicinaya inside marka sameynaya ee sharafteena aysa Soomaal dhan inagu maadsanayso sharci ka soo saar iyaga iyo meediyaha soo daayaba qurankoodii bulacada soo deynaya waxaan maanta leenahay waa inaynu 34 inaga haysanay cid kale inama haysan waliba isaaq bay haysan soo sheegay ilaa uu naxariistay maxamed xasan caa'iga oo shaleetna sheegay darada sheegay ana in badan sheegay maxkamad taliyaan ee maxkamadda sare xaloo baahaysa in si degdeg la isku yimaado waxayna ummadda qura ee Ingiriis xukuumiyay 8 sanadood ee juhalaa wala weyn oo aqoonin xukuumiyay 4 sanadood ee madaxweynaheena u horeeyay oo dalka ilaahay nasiibkiisa ku xiriyay 9 bilood 17 bari kaba kala baxaynaay oo weyn alxamdulillah maanteenu madaxweyne aan leenahay dalkeena u yaalan ee kii labaadna haddana ku furay jabada garxajisa la baxday dadkaas ee kii saddexaadna aan buurta u galay caare u galay dadkaas dhaqanka haddaynu bedelin oo maantana aan niraha ira kala baxa kabaha dal helimeedu burburiya dalku u burburiya inagoo saa magaciin loo baabiyay ya ayanu kursiga oo bixiya hawiyo ee wasiir ku xigeenka ra'iisul wasaare ku kala dheereen doona dawladdan garabka laga galo waxaa is qabsado wixii ay qaldan tahay sheegto iyadoo haatan la timaada siyaasad cad
وهجوجيسو سومالنا وان لهاد لنا هي ولا سومالي wax Soomaali ila ma jirto wax Soomaali gabar ila ma jirto kun 2012 khasaare inaga soo gaadhay wada hadalkii inaynu ku celino oo rag inaga mid wala ku faanaan laabta garacaan ila anaga la hadlina la arag waqaas la hadal bal waninka la hadla Xasan Sheekh ila waxana xilma ka Soomaaliland isku bareeriye maanta dalkeena waa loo tashaday Soomaalidu dhan waa tashatay yoolkoodu waxa weeye waa eergaabo Soomaaliya sanaaga cayn caruurtooda lagu koriyay loo aan lahayn lagu koriyay xasuuqeeni ma caruurteenu sheegi weyne oo ka xishoonay aan sheegno oo adduunka lagu dhigta oo inaga leeyahay maanta waxa xasuuqay ku ina xasuuq wala maanta waan xasuuqay taariikh aan u dhisnay iyo wadooyinka u dhisay laascaano ayaa saa u daawanaya ay cusbitaaladii kaasiyada leeyahay wala xasuuqay oo magaalada laga burburiyay dadka maanta aan beesha aan walaalanahay ma aflagaadeen ma ilaahay ku hadda maanta gacanta ku haya ee hoos galay ilaahay baa ku dhaariyay fiqi on gaalka ay tageen waqooyiga tagi kareen oo gurigiis aan habeen qura seexna kalba habeen meel seexda nabadgelyo daraan kalkule maanta fiqa ay caawinayo Soomaaliya sana gal qabanaya waxaan kule ummadda ku ciyaareen fadhiyo waa kuwii ku xasuuqay ninka habeen sayidii waxaan bal dhulbaantay gaal bad ka dhulbaantay mooday dilay maantana kuma ogola anaga la dooniya reeshaas baadiya hawiye dooniya laakiin ma doonino hawiye danteenu kuma jirto in Soomaaliya dadka ay ku dhaqan ka hayn in dhaqan kale dhaqan ka nahay ee sodada kubsanaya ee martida diliya ee dhulka boobiya ee xawaala qodanaya ee maxaan cunama wax kale aqoonin qaladkeena u geynay ma ku celimayno dadkeena hoog ha u bilaabina eergaab ma qabsan kartid eergaabo ما قبسن تتب قرلوجد ما قبسن عينما لاس عانو تسيج لاس عانو تسيج دول كوين وضل لين هاي بالبلاد لين هاي هرجاوات لين هاي هرجيسات لين هاي إلهي بإسكنت إسرائيل هاي جوجي بانه جوجي أنت أكو جوجي عيبتا وحلين هاي قول ما أنت لا تجاوبنا بدل مشرتو maanta waxa weeye walaana dalacsaday walaano hanjabiya waxaan naga dhigay waxba iska celin kareen oo kala qaybsan marka xoog leedahay ee lagu qiyaasay lagu qadariyo ayaa nabad la doona joojiya nabad aan raadinaysan lacag iyo baad been nabad lagu helo ixtiraam iyo xoog laga baqay ayaa laga helaa basiis oo stress bagaalo tala ayaa nabad lagu doona على هاي نبض محمى لكن لما ربما ما أنت وقت جيد ما تشوفته شينا يسكو هالينيان إسماعيل عمر قيل يسكو هينيان قدر بيسكو هينيان فقه بيسكو هينيان أنتوا حول سينسا وإن نقول أينو تتكلم مدينة إنه قودين هو من مدينة إنه قد مدينة هو حق أيام كنت هاجن هاي إنه ولا بتين ولا أحسن المنافق أنت أي لابتين وي waxaan soo jeedinaa markaa inaynu dalkeena iyo dadkeena aynu ka daynaa aflagaadada iyo ceebta hablaha wax leena xishooda hablaheena waa xishooda hablaheena waa xishooni jireen mikrofoon ma qaadani jirin ka daaya mikrofoonka hablaha ilaahay ka boqo ka daaleena madaxweynaha siyaasadda la kaalay tu arrimood la kaalay tu difaac la kaalay tu daaqil la kaalay tu nabadgelyo la kaalay بلاتفورم وحياة دول سيستم كان هو مدحويني هذا لا يسوق هي تلاذا كينتي بلاتفورم كاغا أي كل شقية وسيرة هذا معها وحية وكان سياسة هذه أريمات دي بدها كان هذا الدفاع كان أنا أقول جرب تاجن أدوق حقلي يان الله هذا الله ما عاشا الله هذا الله ما كان بيقرفوا يسون الله هذا الله مدحوينه كجودا تلدينه هي كجودا maanta talada cid ka go'day garameen wala soo had qof kasta uu talinaya dadkeena laga xishoodo hala iscaawiyo ayuu leenahay jaarka hal ogaado ayuu leenahay ilaahay ka baqo nimcada ilaahayna siiyay aynu ku shukrino oo muxubbo ku darno muxubbo isjecel aan ku darno taasi wax kasta ka adkaanay aan dhaqanka hore bedelo
dhaqan hore aan bedelo wixii dawladda ku qoonsanay albaabkan ku garaacnaa siyaasayeen taasimiyaha kasane ka jooji tan hagaag aan niraaho haddii maalin niraaho reerka madaxweynaha ka soo jeedaan horta dawladdu waa dawlad wadani iyo udub iyo kulmiyo isku tagay ma dawlad garxis dadkana waa dawlad garxis waa qalad haddii dawladaha reer siino hadda waxa cabanina hadhowto waxa hadii dawladda marka dadka reerkooda ka dhigto ha cabanina dawladdu asxaab bay ahaan jirtay riyaal ma ku joogay waxa la oran jiray waa dawladda udub magaciga joogay waxa la oran jiray waa dawladii udub maalinkii ay saaqabtay 2010kii ay noqotay dawlad jeegana lagu sameeyay meesha la gar adag maantana waxay noqotay jeegan kale oo lagu sameeyay elaf weyn oo garxaj hoose ka habdoonaysan iyo habar jala hala joojiyo jeegan taleenays salaadiin habar jala waxaan leenahay joojiyo jeegan Soomaali wax u baahan tahay wax mideeya wax faraarayeen u baahna wax mideeya u baahan oo cadow ka celiya oo caruurtooda mustaqbal siiya oo dawladnimo dhisa oo institution dhisa u baahan tahay kolba laba reer in ilaahay waan reer kale waxayna qabanayna hal geed kale u gaari maayo ما جيك أستينو جاني عبد الرحمن طول بينو قوانين ما عقال بينو قوانين ما جيك أستينو جاني ما واحد قوانين بحق مصبح ما جيك أستينو جاني مسيراي جيت كاكو جاني كداية شركة كتشوتشية عن هناك شقين أسكت دركة هي شخص حق كتشوتشية عليه الصلاة والسلام تعبر شعري أنا ورنت شيء شوتشية لله ولا يوم حلا هاي وأخبار قديها سومالي دولة ما جرتو أنت إزاي سومالي بابي هرتبي بابا أيام بيدنا كريم إنك على هم كهجاتين دونا إنت هالك نسقوي هنو أيانو كلا صاري دونا وإنه ورن دونا إسكت داية دولة قبل هذا دو فاملي باتين قويس باتيني تي وحشقين ويدي توبيي مد إنسان سمايستا إسامح اسمه سامحين سيسكت توحين وحقولي كل شيء سومالي بابينو وحكلو كده حيو هشيس نير هيك مجر ولا غيره ماشي هو وده كوعي على دارات هويه الروحين تي وبدل ماشي هذا ماشي ولا قصاري ما نروح لنا وعيال دلكنا على يستا وفي ما انت تقول السومالي هجاجيه دد وحنا لما تكيو السومالي ولا هجاجيه بتاعي وحنا هذا حشوده دد السومالي هذا حشوده سومالي دا ما انت افريقيا ugu xun taaka fakara abduwala waxaan ku leeyahay abduwala gaaso سومالي وحيالي كرميسه دولة دي قاعدة